Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dhammaan ardayda sharafta leh, welcome back again. It's my pleasure to be back, alhamdulillah, with another important video. MashaAllah, dhammaantiin waxaan rajeynayaa inaad wada caafimaad qabtaan. Si la mid alhamdulillah sidoo kale caafimaad qaba. Ardayda waxay aad iyo aad u socodsanayeen muuqaalada oo aan uga hadlayo vocabulariska in muxuu ahaa erayo badan ay u baahan yihiin. So anna sidoo kale had iyo jeer kama caajisi doono in aan idin soo gudbiyo muuqaalku ka qurux badan yahay, okay? Hagaag ciwaankeena maanta wuxuu leeyahay topic about business. Waxaan baran doonaa ciwaan ku saabsan ganacsiga, okay? So we'll be learning business vocabularies, okay? Vocabulary waxaan baran doonaa oo businesska la xiriiro. So halkan marka waxaan noogu hayaa 36 eray. Waa arkaysaa waa eray aad iyo aad u wanaagsan. So insha Allah waxaan isla soconno. Let's go. Okay, erayga ugu horeeya wuxuu leeyahay handshake. 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 Okay, ereygan waxaa loo adeegsadaa yani erey ganacsi waayo waxaa loo adeegsadaa yani marka qof aad gacanta aad isgelinaysaan. Okay, let's have handshake, okay? Yani gacanta aad isgelino. Maybe marka aad wax isku afgarataan oo kale ba muxuu ahaa badana gacanta la isgeliyaa. So laba qof wax kala gadanayso gacanta isgelinayaan si ay wax isku afgartaan, okay? Handshake. Waa erey aad wanaagsan. Ereyga xigo boardroom. 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 Boardroom waxaa la yiraahdaa waa qol يعني يالو ميس وين geesahana kuraas ay uga xiriirsan yihiin waxaana badanaa lagu sameeyaa shirarka ganacsi ku saabsan ba halkaasi lagu qabsadaa boardroom ayaa la yiraahdaa waa qol gaar ah oo miis dheer yaalo kuraasna ku xiriirsan yihiin ganacsatadu iskugu yimaadaan ay ka wada hadlaan waxyaabo ganacsigooda ku saabsan boardroom ayaa la yiraahdaa ereyga xigo products waa يعني شيء محوها أد مركز إيفينيسيد شيء قاسنا لا تابن كر شيء لا تابن كر وياهي أو يعني something that is tangible وح لا تابن كر إنه ياهي يعني وح إيفينيسو ولا تابن كر products هي اللي هذا أريحيو competitor وقفك كلا ترتميه أوكي يعني he is my competitor she is my competitor يعني قف كلا ترتميه وحق عسي وحي حاتو لكن هذا جنعسي هم بودك سننا waa ganacsadaha kale ama ganacsatada qofka kula tartamay markaas tartanka kuula jiro waxa la yiraahdaa competitor. Okay, ereyga xigo management waxa la yiraahdaa maamul, okay? Yeah, the management of this shop is very good. Maamulka dukaankan aad buu wanaagsan yahay, okay? Yeah, management. Good. Ereyga xigo loss waxa la yiraahdaa marka aad ganacsiga aad sameynayso aad khasaare aad gasho, okay? Yeah. wixii markaas aad hantida ay kugu fadhiday iyo wixii markaas aad ku iibisay marka ay wixii aad ku iibisay ay yar yihiin yani khasaara waxa la yiraahdaa loss ayaa la yiraahdaa we are under loss, okay? khasaaro weyn ayaa ku sugannahay. Okay, ereyga xigo warranty waxa la yiraahdaa yani tusaalahaan oo kale wax baad iibsatay shay baa iibisay so shaygaas يعني صحيحة أما وحلو بالن قاضي شيء إحنا دوكا حلابو أنا كركنا واي لو سنة هل سنة وارنتي أوكي يعني هدو حلابو سوء الناس دب له حاجة جناية أيوة حاليا هذا وارنتي يعني هو واحد الأسقاف قرته وحاصل الأسقاف قرتنا إيهن واحد دوكيمنت ده واحد قرن ولا قرية أو راقد له قرية هذه كنا لو صينية حاليا هذا وارنتي عليه هذا أوكي أري حاجة strategy is a plan يعني waa qorshaha markaas ganacsiga qofka uu markaas uu qorsheysto oo my strategy in this year is basically make a lot of profit yani qorsheyga waxa waa in markaas maanta sanadkan aan sameeyo faa'iido badan. Okay, ereyga xigo resign waxa la yiraahdaa in aad shaqo joojin aad isku sameyso, okay? company oo shaqeyn jirtay then adaad waxaad leedahay shaqadiina ma rabo waraaqada qoraysa in shaqada aad iska rusqeynayso oo shaqada aad ka fadhiisanayso waxa la yiraahdaa resign. I'm resigning from your company aniga company-giina waan ka baxaya oo waan ka fadhiisanayaa. Okay, hagaag ereyga xigo businessman waxa la yiraahdaa nin ganacsada ah, okay? ninka ganacsiga ku dhex jira waxa la yiraahdaa businessman. ereyga xigo company waa shirkad, okay? Yeah, Hubal is a great company, okay? Yeah, Hubal waa company weyn waa. Good. Ereyga xigo manager waxa la yiraahdaa meel qof u weyn qofka meeshaas u weyn
oo maamula waxaa la yiraahdaa manager. Who is the manager of this company? Yeah, company-gan yani maamulkiisa yaa hayo. Ereyga xigo business attire. Business attire waxaa la yiraahdaa yani dharka oo markaasi ganacsiga marka company ka shaqeynayso kale waxyaabaha markaas company-gaas ay kugu talagalaan labis noocaas waa inaad soo qaadato. Okay, do you have the right business attire? يعني لبسك الصحة أو كمبانينا مسيدتها. أوكي يعني هو كمباني هذا وح جارح أي وطن جالان ضدك وشقة يعني إن أي حرتان أو حلي هذا business attire. good أريح حيو trade mark وحلي هذا يعني علامة مركز إيبين يسد محوها كمباني والبو علامة إيبيان سمت جارح أي لهذا logo أو كلواي. so what is the trademark of your products? يعني alaabtiin aa iibinaysiin maxaa calaamad sumad u ah. Okay, trademark waxaa la yiraahdaa sumad oo markaas alaabta aad iibinaysid calaamad u ah. ereyga xigo deal waxaa la yiraahdaa wax la isku afgarto. Okay, yeah, deal done. Okay, deal waxaa la yiraahdaa wax la isku afgartay waxaa la yiraahdaa deal. good ereyga xigo agenda waxaa la yiraahdaa in muxuu meel lagu xuso waxyaabooyin badan marka shir la galayo oo kale qodobada markaas laga hadli rabo oo kale. Okay, yeah, we have 3 agendas in today's meeting. saddex waxyaabood baan maanta aan uga hadli doonaa shirkeena. so agenda waxaa la yiraahdaa shirkaas qodobada looga hadlayo ayaa la yiraahdaa. Okay, qodobka koowaad waxaa waay in shaqaalaha mushaar loo kordhiyo. qodobka xigo yani in muxuu nadaafada lagu dadaalo saas oo kale yani qodobada laga hadlayo waxaa la yiraahdaa agenda ayaa la yiraahdaa. ereyga xigo advertising waxaa xayisiin. Okay, xayisiinta waxaa la advertising. Okay, you have to do a lot of advertising for your products to be seen in different areas. yani waa in xayisiin badan aad samaysid si badeecadaada meelo badan ay u gaarto oo looga arko. Okay, ereyga xigo retire waxaa la yiraahdaa in shaqada aad ka gabowdo oo waqtiga loogu kambaniyasha wax da'bi leeyihiin. salaakan waxa laga in lagu dhaho da'da konton marka gaarto waxa waay waa shaqada waa ka fadhiisanaysa yani waa gabowday oo kale waa retire. ereyga xigo sales person waxaa la yiraahdaa qof wax iibiyo. Okay, who is the sales person in this in this store? sales person waa qofka markaas wax iibinayo meeshaas joogo. marka dukaanka aragto dad badan baa ku jiraan meesha wax iibinayo. so qofka dadka wax iibiyo waxaa la yiraahdaa sales person. Okay, good ereyga xigo supervisor waxaa la yiraahdaa kormeere yani qofka markaas shaqaalaha kormeero oo waxyaabaha ay sameynaya saas yani uu eegayo waxaa la yiraahdaa supervisor la yiraahdaa. ereyga xigo office waa xafiis. Okay, xafiiska markaas meesha laga maamulo waxaa la yiraahdaa office. ereyga xigo salesman waa okay yani waa nin markaas wax iyo salesperson oo kale can be a woman or can be a man, but salesman waa nin wax iibinayo waa. Okay, good ereyga xigo service waxaa la yiraahdaa yani wax markaas qofka uu bixiyo waxaasna ay yihiin wax xirfad ay yihiin ku saleysan. Okay, yaa tusaalahaan oo kale dukaan marka aad tagto telefoon ka soo iibsato telefoonka is a product. Okay, but ninka markaas telefoonka ku haduu ka ciladooba oo kale ku hagaajinayo he is giving you a service. ayu service ku siinaya yani xirfad buu markaasi uu soo gudbinaya. so xirfadiisa soo iibinaya marka. Okay, qofna telefoonku ka iibinaya qorna service ku ka iibinaya xirfadu ka iibinaya in telefoonka haduu ka ciladoobo protector lagu saaro waxyaabaha saadilada service la yiraahdaa. ereyga contract waa heshiis. Okay, yeah, marka dad ay wax ku heshiinayaan ganacsiga oo kale. Okay, yeah, let's make contract. Okay, yeah, 5 years contract, 2 years contract yani waa qandaraas waa in wax lagu heshiiyo waa ayadoo markaas la kala saxiixanayo. ereyga xigo shipping waxaa la yiraahdaa marka alaab aad gadato in alaabta lagu soo dhoofiyo oo lagu soo qaado. Okay, yeah, like you have to pay $50 for shipping يعني $50 waa inaad bixiso oo lagu soo qaado alaabta. shipping waxaa la yiraahdaa alaabta in lagu soo qaado. ereyga xigo
bonus. Okay, bonus waxa la yiraahdaa waa added money oo kale, yani waa lacag dheeri ah oo markaas lagu siinaya. Yani haddii lagu dhaho kale markaad dadaasho you will be given an extra bonus, yani lacag dheeri ayaa wax dheeri ayaa lagu siinaya. ereyga xigo export waxaa la yiraahdaa yani badeecada in badeeca aad dhoofiso, yani dalka aad joogto aad ka dhoofiso oo dal kale aad u dhoofiso, waxaa la yiraahdaa export. ereyga xigo okay, qaybta ugu dambeysa marayna ereyga xigo negotiate waxaa la yiraahdaa gorgortan. marka aad wax aad gadanayso oo kale in qofka aad la gorgortanto aad tiraahdo waxaas oo qofku wuxuu ku dhahay waxaas intaas ka iibinaya ma intaas waa qaali igu tahay. So gorgortankaas waxaa la yiraahdaa negotiate. Okay, yeah, let's negotiate about the product that you are giving me. aan ka wada gorgortano badeecada aad siinayso, negotiate. ereyga xigo agreement oo wax la isku afgartay. Okay, yeah, let's agree about you take this product and I take yours. yani wax la isku afgarto waxaa la yiraahdaa agreement ayaa la yiraahdaa. ereyga xigo invoice waxaa la yiraahdaa waraaqad markaad dukaan aad wax ka gadato ama company wax ka gadato, yani cadeynayso alaabtii aad gadatay oo la qoray iyo shay walbaba markaas inta laga iibiyay. Okay, yeah, so tusaalahan oo kale you say waxba meel ka gadato. Okay, you can see are you not giving me an invoice, or where is my invoice oo kala dhigi kartaa. invoice waa receipt oo kale waaye, cadeynaya alaabtii aad gadatay iyo shay walbaba beeca lagugu dhuftay, invoice ayaa la yiraahdaa. Okay, ereyga xigo estimate waxaa la yiraahdaa qiyaas waaye. Okay, salaano kale meel ganacsi arta inaad furato, qof baa la tashanaysaa what do you think of how much can I start with this business. Basically wuxuu ku dhihi karaa how much do you estimate maybe to start my business, meeqa ku qiyaasaysa. estimate waxaa waaye waa qiyaas waaye. ereyga xigo profit waa faa'iido. Okay, yani marka wax iibiso faa'iidada kusoo gaarto waxaa la yiraahdaa profit. ereyga xigo guarantee iyo ereyga muxuu ahaa aaway inta ku haysanay. There was a word that we had here, where is it? Yeah, warranty iyo guarantee xogaa isku soo dhow yihiin. guarantee waxaa waaye hubaal, yani wax qof uu yani uu ku xaqiijiyo. waa tusaalahaan kale qof wuxuu ku dhihi karaa I guarantee you that you buy this car, yani waxaan yani ku xaqiijinaa gaarigan haddaa geeto kale maybe it's good for you. Okay, gaari aad iyo aad ku anfaci doono waaye. laakiin warranty oo kale waxaa qof in wax lagu xaqiijiyo oo markaas documented ah oo waraaqad markaas waxaas hadday ka halaabaan ilaa waa soo celinaysa oo kale waaye. Okay, marketing waa suuqgeyn, in alaabta aad suuq geyso. Okay, yeah, marketing waxaa la yiraahdaa suuqgeyn in alaabta, waa sida advertising oo kale waaye. ereyga xigo promotion waxaa la yiraahdaa dalacsiin, yani meel baa ka shaqeysaa, yani waxaa lagu leeyahay oo kale haddaad yeesho kale you will be promoted, waa lagu dalacsiinayaa. Okay, ereyga ugu dambeeyo import waa wax aad soo dhoofsanayso, yani dalka dibadiisa baad ka keenaysaa, dalkaaga keenaysaa. exportna muxuu ahaa adaad dhoofinaya. Okay, so ereyada wanaagsan waa insha Allah jumlooyin waxaan rajeynayaa insha Allah usoo samayn doontaan hadduu aleedmo. waxaan rajeynayaa ereyadaas dhammaantood inaad ka wada faa'iidaysateen. muuqaalka xiga intaan ka kulmi doono, sidaas nabadgelyo.